ولا لا تعالى تمدد مركا مقنوا عين ذو توغيسو أو تشكيو الماما هاتاني لتصالينو تينتي تيكسي بودلان تابقات نغيي تينتي تيكسي بودلان تابقات نغيي تبتتاسن إيو بوشا وآلو ترتميا كلاموين كان قاد نيبا قليا تاريخ دا حكومتنا تاغيرو آنس كرب تاغنو تفراروغ لما دوني توغو ودا يشا تبتتاسن إيو بوشا وآلو ترتميا كلاموين كان قاد نيبا قليا تاريخ دا حكومتنا تاغيرو آنس كرب تاغنو تفراروغ لما دوني توغو ودا يشا أو تشكيو الماما هاتاني لتصالينو تينتي تيكسي بودلان تابقات نغيي تينتي تيكسي بودلان تابقات نغيي دولة مبن لنا هيو لغو تنادو وحلا تفكرو ويغبتين توسفوليني maanta waa maalin weyn oo ummadda reer gaalkacyood ee degmada gaalkacyo ku nool la xarigi jarayo saldhig casri ah oo saldhigii bartamaha ee kontomaadkii la dhisay inta dib loo dumiyey laguna ballaariyey qaybtii dambe guriyihii kaambada in laga dhisay saldhig casri ah oo saldhigyada caalamka la jaanqaadi kara adeeg badan oo amnina bixin kara saldhigaasoo ka kooban xafiisyo shaqo oo 11 xafiis ah chief ay saraakiishu seexanayaan oo 2 qol iyo hool weyn oo shirarka ah xabsi lagu xirayo dadka eedeysanayaasha ama dambiilayaasha ah wiilasha ama ragga oo 3 qol loogu talagalay gabdhaha oo 1 qol loogu talagalay iyo dadka criminaliska ama gacan ku dhiglayaasha oo qol loogu talagalay masaajid weyn oo qaadi kara ilaa 100 qof musqulo 6 ah oo 3 loogu talagalay ragga 3 loogu talagalay gabdhaha barxad weyn oo ciidanku uu amarka iyo amirta ku qaatay faylka runtii waxaan oran karnaa baakin weyn oo banaanka isna dhinaca laamiga xiga oo baabuurta iyo gaadiidka la dhigi karo xilliyada gaadka ciyaarka ciidanku sameynayaan ay ku sameyn karaan waxaan oran karnaa saldhiga kan wuxuu ku soo kordhin karaa degmada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudugba adeeg amni oo dhammaystiran waana saldhig runtii si habsami leh oo qurux badan loo dhisay waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda amniga iyo taliska ciidanka booliska dowladda Puntland iyo taliyaha qaybta oo runtii si dhow shaqada tan dowladda Puntland wakiil uga ahaa iyo maamulka degmada gaalkacyo dhinaca administrationka shaqadiisa ka qabsanayay sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahadcelino hay'adda UNOPS mashruuca kan implementationkiisa ama fulintiisa iska lahayd iyo ilaalinta tayada iyo kontrolida shaqada waxaan rabnaa sidoo kale inaan u mahadcelino kambaniga Safi oo runtii kambani wadani ah oo kambani Soomaaliyeed ah si xilkasnimo leh shaqada tan u qabtay targetkii la lahaana la gaaray aad iyo aad baa u mahadsantiin dhammaantiin halkaan lagu wareejinayaa oo ay goobjoog ka yihiin wasiir ku-xigeenka amniga taliye ku-xigeenka booliiska Puntland gudoomiyaha gobolka mudug duqa degmada taliyaha qaybta galmudug booliiska gobolka mudug agaasimaha guud ee amniga iyo kambaniga Safi saraakiisha kale ee booliiska oo taliyaha saldhigga dhexe iyo howlgelinta iyo dhammaan saraakiisha kale ee booliiska ee kala duwan labada qaybood saldhiggii bartamaha oo taariikhdiisu ay ka soo bilaabanayso 1943 ama gumaysigii runtii waa wax weyn baan isleenahay way qabsoomeen horumar fiican baa la gaaray
gobolka mudug booliiskiisu dhinac kasta iyo amnigiisa waxaa muuqata markii colaadihii laga soo baxay oo shabaabkii laga adkaaday in horumarro fiican ay socdaan hawsha tan halkaa laga qabtay ugu horrayn waxaan u mahadcelinaynaa oo ka soo bilaabaynaa degmada gaalkacyo oo qayb weyn ka qaadatay burburintii meesha tan oo dadweyne laga kicinayay waagii hore iyo la socodka arrinta tan iyo dhiridhirinteeda maamulka gobolka mudug taliska booliiska wasaaradda amniga iyo dhammaan hay-adihii ka qayb qaatay arrinta tan mashruucan hirgelintiisa anigoo ku hadlaya magaca booliiska gobolka oo waxaan ballan qaadaynaa inaan xanaanayno meesha tan dadkana ugu shaqayno ilaalinno sii horumarino insha allahu waxaa naga ballanaya inaan noogu timaadaan adeeg hufan oo amni oo ku salaysan cilmi oo ku salaysan cadaalad waxaan aad ugu faraxsanahay saldhiggan ballaaran ee saldhigga bartamaha ee ku soo biiray booliiska galmudug iyo puntlandiba waa saldhig booliisku waa hal far saldhig booliiska oo dhan muhiim u ah dhul ballaaran ku yaalla aad loo qurxiyey aad baan ugu faraxsanaa waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha hay-adda ama ha ahaato ama maayirka ha ahaato dhammaan kulli waa u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo ama kicinta dadka iyo dhismihiisa kabaniga dhammaantood waa u mahadcelinaynaa wax nagu soo biiray oo booliiska ku soo kordhay weeye salaanka bacdi maanta aniga waxay ii tahay farxad weyn iyo maalin aan raynrayn zaa'ida dareemayo waa maalin ka mida maalmaha waaweyn ee ilaahay nagu simay naftana nagu soo gaarsiiyey inaan markhaati ka noqonno shaqo aynu soo bilownay wakhti dheer ka hor inaan maanta xarigga ka jarayno qodobada ugu muhiimsan oo aan ka rabo inaan meeshaan uga hadlo waxaa ka mid ah taariikhda uu soo maray saldhiggan ma helin wax dayactir ah iyo dib u fiirin laga soo bilaabo 1943 oo ahayd markii ugu horraysay oo dhidibada loo aasay kadib qaranjabkii Soomaaliya Puntlandna la aasaasay waxaa dhacday in saldhiggan uu noqday meelaha la ilaaway waxaan fursad u helnay tiimkeenan hadda shaqaynaya ila dawladdu waa xarg isku dhiibe laga soo bilaabo wasiir ku-xigeenka amniga ama wasaaradda amniga guud ahaan ee xukuumaddan taliye ku-xigeenka booliiska oo booliiska matalaya gudoomiyaha gobolka iyo duqa degmada dhammaantay maanta fursad waxaa noo ah in uu rabbina solansiiyey inaan 1943 saldhiggii la dhisay inaan annagu dib u dhisno waa wax aan isdhihi karo ammaan bay mudan tahay ilaahay baa samahadaas oo dhan iska leh intaas ka bacdi waxaan rabaa barnaamijkan saldhiggan lagu dhisay wuxuu ahaa siyaasad dawladeed oo uu hogaaminayay madaxweynaheenna mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo ka dhigtay tiirka koobaad ee waxqabadkiisa wax ka qabashada amniga waxay tani muujinaysaa in gaalkacyo loo hagarbaxayo ay dawladdu tahay dawlad u hagarbaxaysa magaalada gaalkacyo diyaarna u ah inay wax u qabato waxaan rabaa inaan laba dardaaran bixiyo dardaaranka koobaad waxa weeye ilaalinta hantida dawladda saldhiggan waxaa ku baxay lacag ku dhow 1 milyan waxaan u malaynayaa 700 iyo jajab kun oo dollar baa ku baxay wuxuu ka kooban yahay xafiisyo wuxuu ka kooban yahay xabsiyo wuxuu ka kooban yahay masaajid wuxuu ka kooban yahay dormitories ama meelo ay seexdaan ciidamadu wuxuu ka kooban yahay meelo nadaafadda iyo suuliyo wuxuu leeyahay hoolal shirar dhammaan dhulka intaa la eg oo sidaas loo qurxiyey ilaalin buu rabaa annagu waxaan soo wadnaa hadda furniture-kii ama qalabkii xafiiska oo aan keeni doonno insha Allah 15 bari oo nagu soo aadan xoogaa waxaa dhacay daahniin doomaha waxaan rajaynaynaa inaan hantidaas ayadana aan soo wareejino saraakiisha lagu wareejinayo oo taliyaha qaybta ugu horeeya iyo taliyaha saldhiggan waxaan ka codsanayaa inay hantidan u ilaaliyaan sidii hanti ay leeyihiin number 2 qodobka labaad oo raba inaan ka hadlo waxa weeye waxaan rabnaa in
saldhigan uu noqdo model markaan leeyahay waxa weeye mid lagu daydo haddii saldhig qurux badan la sameeyo oo askarta joogta ay noqdaan askar kala daadsan nin uu macawis qabo mid cumaamad wata mid maxaa la yiraahdaa ii sheeg dhar kala jaana qaba waxaa dhacaysa in aan dadku adeegii ay rajaynayeen aysan ka helin